Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada maanta. Waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan sidee buu qofku marka uu barto computer science faa'iido maxay ah buu helayaa. Waa haddii uu u barto computer science-ka sidii la rabay uu u barto. Faa'iidooyinka marka ay leedahay computer science-ka in la barto waxaa ka mid ah kow waxaa number one ah in si fudud aa shaqo ku heli kartid. Way fududahay inaad shaqo markiiba aa ku hesho oo si degdeg ah aad shaqo ku hesho. Because meelo badan baa uga baahan in laga shaqeeyo, meelo badan ayay shaqo ka heli karaan. Waxaa kaloo ka mid ah numberka labaad faa'iidada ay leedahay in computerka la barto ama computer science aa baratid. Faa'iidadiisa waxaa ka mid ah macquulnimada in dunida inagu aan bedelno markaa. oo because dunidii maanta maadaama computer science ay tahay waxa la isku baacsanayo inaan bedeli karno marka dunidan aan joogno aan bedeli karno. Waxaa kaloo ka mid ah oo aad ugu sii fiican tahay waxa la yiraahdo remote jobs. Shaqooyin adoo gurigaaga jooga aa ka soo shaqeyn kartid. Iminka haddaad raadisaan waxaad arki kartaan remote computer science jobs ka eega waxaa arkaysaan kuwa tiro badan baa ku jira meesha oo arki kartaan oo faa'iido leh markaa. So faa'iidooyinka uu leeyahay computer science in la barto waxaa ka mid ah remote jobs badan buu leeyahay oo aad gurigaaga ka soo shaqeyn kartid. Waxyaalaha kale ee uu faa'iidada ku leeyahay waxaa ka mid ah ma garanaysaa in xirfadaadu ay xirfad powerful ah noqoto. Xirfadaadu waxay noqonaysaa xirfad powerful ah sababtoo waxaa ka jawaabaysaa baahiyo tiro badan oo bulshadu markaa ay u baahan tahay baad ka jawaabaysaa. Waxaa ka mid ah in aad IT-gii uu broad yahay, IT-gu ballaaran yahay, meelo badan baad ka geli kartaa markaa. Meelo tiro badan ayaad ka geli kartaa oo si degdeg ah aad markiiba wala qabsan kartaa. Waxaa ka mid ah faa'iidooyinkiisa income-kiisa oo sareeya. Waxaa laga yaabaa online-kaada iskaga shaqaysanaya in income badan uu kaa soo galo si passive ah. Freelancer yar iska noqotid, website yar samaysid, inta application dhistid, aad website ku shubtid, midkii kasta lacag ku xidhid, dadku marka ay halkaa ka shubtaan, taasoo kale faa'iido uu leeyahay weeyaan. Waxaa ka mid ah waa la ogaaday iminka dad badan oo ka tirsan dadyowgan computer science-ka ahi inay shaqadooda ku qanacsan yihiin oo ay jecel yihiin oo ay satisfied ku yihiin. Waxaa kaloo la ogaaday dadka IT-ga barta, computer science-ka barta, in IT-gii ay u arkaan inuu yahay useful u yahay. Waxaa kaloo ka mid ah naftaadii self development bay samaynaysaa oo waa horumaraysaa. Waxaad ku horumarinaysaa daily IT wax cusub baa soo baxa. Daily waxa cusub ee soo baxa haddii aanad baranin hawadaad ka baxaysaa. So self development waa samaynaysaa, waa horumaraysaa. Taas lafteedu waa qayb kaloo faa'iidada ka mid ah. Waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo inaad contact mar walba la yeelato warshadihii iyo dadkii farsamada gacanta ku hayay inaad contacts la yeelatid. Waxaa kaloo ka mid ah in meesha adigu aad joogto aad ku heli kartid mushaharkaaga iyo lacagtaada sababtoo ah remote jobs badan baa jira. Shirkadaad la shaqeyn karto online-ka aad kula soo shaqeyn kartid haddii xitaa aad fasax qaadatid. Waxaa kaloo ka mid ah waxa la yiraahdo shaqadan IT-gu ama computer science degree-gu wuxuu leeyahay future perspective wanaagsan buu leeyahay marka hadda la eego. Waxaa kaloo oo creativity-ga qofka ayaa kor u soo kacaysa. Qofka creativity-giisa ayaa kor u soo kacaysa laftigiisu oo hal abuur buu yeelanayaa qofkaasi. Qofkani wuxuu noqonayaa technologically independent buu noqonayaa. Technologically independent waxa weeyaan qofkani inuu xor noqdo markaa. Technology field-kii uu iskaga dhex jiro, wax badan uu ka qabsan karo, wax badan uu ka samaysan karo weeyaan. Waxaa kaloo ka mid ah inaad fahantid adduunkan iminka digitalka isku wada bedelay. Hadday gaari tahay, hadday ciidan tahay, hadday hub tahay, everything digital buu noqday. So inaad digitalka iskaga dhex jirtid oo aad ogaatid faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa
iyo waxa uu qabtay wuxuu gudayo wuxuu galo intaba. waxaa kaloo ka mid ah in waxyaalaha security-ga aad la socotid maadaama IT tahay inaad ogaan kartid waxyaalo badan oo security ah. waxaa kaloo ka mid ah wax soo saarkaaga oo kordha, wax soo saarkaagu kordhaya, hawlo badan baad qabanaysaa, waxyaalo badan baad soo saaraysaa. waa idinka arkay dadka IT-ga bartay most of the time waa busy, shaqay wadaan, hawl bay hayaan, wuxuun bay gacanta ku hayaan. so creativity-gaaga iyo productivity-gaaga iyo waxba korba usoo kacaya hadday wax soo saar tahay, hadday tahay hal abuur iyo waxba. waxaa kaloo samayn kartaa awood aad u yeelanaysaa inaad programma dhisto, programmada hadhow si online aad ku iibiso, passive ahaan lacag aad uga hesho, cashara duubto IT-ya si passive lacag uga hesho. waxaa kaloo ka mid ah inaad waxaad samayso waxa la yidhaahdo inaad yaraysid waxa la yidhaahdo costiga ku baxaya kharashaadkaaga iyo waxyaalahaasoo dhan inuu yaraado, sababtoo ah maadaama aad wax badan samaynaysid oo baahiyo badan buuxinaysid, kharashaad badan baa hoos kaaga dhacaya adiga laftigaagii oo income badan baa kusoo gelaya. haddaba faa'iidadaas ayuu leeyahay computer science oo wax badan oo kaloo weliba aana sheeginayaa jira. waa soo aruuriyay intaas qof kasta wuu baran karaa, laakiin casharkan xiga waxaan kaga hadli doonaa bal qofku sidee ayuu si wanaagsan ugu baran karaa maadaama arday badan ay barteen oo ay qaar suuqa iska joogaan oo aysan online-kiiba ku shaqaynin oo aanay wax badan samaynin. cilada jirta maxay tahay oo ardaydeenu ay weli wax u samayn la'dahay? ciladaas jirtaan ka sheekayn doonaa iyo caqabadaha ardayda haysta laftigooda. so aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina. waxaan rajaynayaa asxaabta kale aan ogeyn inaad la wadaagi doontaan. asalaamu calaykum.